dowladda Somaliland ayaa dowladda Sierra Leone ka codsatay inay la isticmaasho furaheeda xagga internetka domain maadaama uu ku dhamaado SL oo u ekaan kara Somaliland. Domain ayaa waxa dowladaha adduunka u adeegsadaan inay magacooda raaciyaan bogagga internetka sida google.so ama google.co.uk. laakiin Somaliland oo muddo 30 sanadood ka madax banaan Soomaaliya ayaan helin madax banaani dhinaca internetka marka lagu eego indhaha caalamka. waxaana jira google.so oo u taagan Soomaaliya, balse taa beddelkeeda Somaliland ayaa doonaysa inay hesho domain siin kara google.sl kaasi oo ka dowladda Sierra Leone. ma jiro war rasmi oo dowladdu ku shaacisay arrintan, balse warbaahinta Somaliland Chronicle oo wargeyska Geeska Afrika soo xigtay ayaa shalay baahiyay warkan isagoo soo xiganaya warqad ku qoran afka Ingiriisiga oo uu sheegay in wasiirka wasaaradda boostaha, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu Dr. Cabdiweli Yuusuf Jibriil Somaliland uu u diray wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta Sierra Leone kaasi oo magaciisu yahay Mr. Maxamed Raxmaan Iswaaray, taasi oo kaga dalbaday in Somaliland la isticmaasho furaha internetka ee .sl